shirkadda basaska ee Nobina ee ka howlgasha Khuu Herat ayaa dhawaan soo rogtay in darawallada kaxeeya basaskeedu ay shaqeeyaan 13 saacadood oo ah waqti aad uga badan 9 saacadood oo awal la shaqeyn jiray halkii shifte. Khuu Herat waxa haatan isku ah oo ay basaskeedu tagaan Bollebygd, Borås, Markamun, Isfanyunga, Taranemo iyo Ulricehamn. si aanu haddaba arrintan xog dheeri ah uga helno waxaanu wareysanay Maxamed Faarax Xamari oo bas ku kaxeeya magaalada Borås. waxaana marka hore uu ka hadlayaa saameynta ay arrintani isaga ku yeelatay. qof kasta oo darawal ahay way saameysay marka waa shaqo oo fadhiya xukuusi marka waxay ku saameynaysaa oo kala maanta oo dhan fadhisaa haddii xitaa ay ka degto waqtiyaad howlaha kale ama noloshaada kale aad jaanis u weelaysa xitaa hadda ma helaysid hadda saakoo kale lixdiyaan bilaabay waa inaan 5 barki soo kaca ama 5 soo kaca hadda ilaa weli 6 iyo waxaan dhameynayaa 20 kabacdi wax kale ku haray mala guriga tag qubayso seexan leh wadana barnaamij ka bilowday. Xamari oo tilmaamay in awal ay u shaqeyn jireen qaab uu shiftigu u kala qaybsan yahay 2 qaybood oo ay ku dhex jirto 4 ilaa 5 saacadood oo nasiino ama biririf ah kadib marka 4 ilaa 5 saacadood la shaqeeyo ayaa ka hadlay in jadwalkan cusubi uu xitaa keenay dhibaatooyin dhanka qoyska ah. way adagtahay aad iyo aad noo saameysay marka xagga familkeena markii aad ahayd markii qaar laga yaabo marka xitaa marka saacadahaas oo kala shaqeynaysa wadkaaga ku baahan inaad arkino subaxdii asoo hurdaya ka soo tagta habeenkiina asoo jiifo ayaa u noqonaysa sababtoo waa waqtigii aad u dheer ilmaana subaxdii daagisa ama iskuul ay leeyihiin ina hore ciyo loo seexiyo subaxdiina hore loo kiciyo waayo marka adiga ma haleelaysid xogaa familian problem xitaa wuu ku imaan karaa. waxa uu sidoo kale ka hadlay Xamari intaan ugu darina ay tahay xaaladda niyadeed iyo xitaa midda jireed ee darawalka isagoo xusay in waxa iska bedelay ay yihiin saacadihii shaqada oo la kordhiyay oo qure aan mushaharkii loo kordhinin dadka haysta qandaraasyada rasmiga ah ama shaqada joogtada ah. maya mushaharkii waa meeshiisii saacadihii unbaa badan wallahi aad iyo aad ku saameynaysaa xanuuno fara badan ka qaadaysaa waxaa socod kusii dheer fadhiga mentality ahaan macnaha maskaxiyan shaqada markaa imaatiin aad ku faraxsan tahay oo shaqadaada gudanayso ayaa aad u wanaagsan tahay markaas waxaad dareemaysaa inaad ku faraxsan tahay ama caafimaadka manba wuxuu ka bilowdaa horta qofkii inuu faraxsan yahay niyadda laakiin qofka wixii haddii uuba ku faraxsanayno dan keliya ay ku kalifayso maanta dhowr saaxiibaan lahay oo ila shaqeynayay badanaa adiga 80% waa ka tageen sababtoo waqtigii iyo wax meesha ka gelayo iyo caafimaadkii iyo noloshii iyo qof kasta family story lahay uu iskaga tegay meesha family balaaran lahay sababtoo ma soconayso hal qof keliyana ma awoodo inuu intaas ciyaalo oo waxa ay rabaan u sameeyo ama ay rabaan ka helo. dhanka kala sheegay in arrintan ay doodeedu soo taagnayd xitaa ka hor intii aan la dhaqan gelin balse weli aan wax hal ay ka imanin dhanka shirkadda oo ku doodaysa in ay sharci raacayso. waxaan intaa ku daray waxa isaga qof ahaan u qorshaysan mustaqbalka dhow. shaqada aniga ahaan inaan sii wadi doono ilama sababtoo qof walba wuxuu leeyahay hadaf noloshiisa u gooniya sababtoo sidee wax ku heshaa adigana aad ku badbaadaa qof walba uu ku fikiraya mar haddii noloshaadii iyo caafimaadkaagii iyo familkaagii ay meesha ka baxayaan waxa usii shaqayso ama aad meesha aad ku joogta aad u arkeenin shirkadda wax aday haddii kaa faa'iidayso adigana aad wax ka faa'iidayso waa wax la gartay laakiin 90% saacadaha faraha badan shirkadda inay faa'iido ku qabto sababtoo hadday faa'iido ku qabmaysa saas maysa sameyn lahayn darawalka wax faa'iido hadduu ku qabo maan arkin aniga laakiin ani ahaan waxay qorshaysan inaan wax ka bedelan ama shaqo ka bedelan inaan raadsado haddii qorshahani waxbay ka bedelan sideeda ay ku wado ma u maleynayo. Maxamed Xaaji, Radio Sweden.